midda aan diidana waxaa weeyo xaafadda islii in gebigeedaba la xiro. xaafado kalea laga arkay, waxaa lagu arkay xaafadda Kawangware. xaafadda islii in la xiro waan ogolaanay, oo maadaama ay citizens community iyo xildhibaankaba ay ogolaadeen in la sameeyo mass testingkana markii la sameeyey in dadka laga qaado dhacaan laga qaado la baaro, in dhacaan laga qaado. aniga kula hadla waa laga qaaday, waxaa noqda negative. waa shay muhiim ah, laakiin xaafadda islii waa xaafad Nairobi oo idil ayaa u imaataa inay wax ka iibsadaan. marka dadkii laga qaaday dad yar oo waxay noqdeen, soomaalida way ku yar tahay, laakiin sheekada hadda waxaa looga dhigay inay tahay in islii ay tahay meesha xudunta cudurka. dowladda waan la hadalnay saaka, moorasha waa la furayaa, ganacsiga waa la furayaa, wixii xunbo waa islii. sheekadaas ayaan ka soo horjoodnaa. aadan barre, dowladda aad eedaynayso adigana waad ka mid tahay, weliba ragga ugu sarreeya xagga xukunka dalkaad ku jirtaa. dowladda waxaan ma u sheegtay oo ma tiri dowladda waa in la eedeeyo. horta xildhibaan aan ahay. midda labaadna dowladda waan u sheegnay ganacsiga maanta waa la furay, booliiska waa loo sheegay inay dadka ku xadgudbin. waxaa kaloo la sameeyey in muddo 7 beri kabacdi dib loo fiirin doono. laakiin midda aan diidayno waxaa weeyo islii Soomaali keli lagama qaadin teeska. soomaalida way yareed. marka sheekada laakiin ay mediaga iyo social media la geliy waxaa weeye inay tahay islii ayay noqotay meesha xuduntii cudurkan COVID-19 magaalada Nairobi. taas ayaan haddaan ahay mas-uul Soomaaliyeed aan diidanahay, oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda amniga aan u sheegnay. maantana alxamdulillah ganacsatada iyo xildhibaankaba labadaba way la kulmeen mas-uuliyiinta Nairobi. marka maanta in moorashii iyo ganacsiga la furo waa lagu tashaday. laakiin maxaan diidaynaa anaka marka hadda tankir kama hadlay fikradda tahay in islii ay tahay centerka COVID. aadan barre, marka laga soo tago in ganacsiga la furay, xaafaddii haddaanan la geli karin lagana soo bixi karin, maxay micnoy leedahay? marka dowladda ma kala hadasheen in meeshan si kale xal loogu raadiyo oo magaaladii xaafaddii laga go'doominayo la joojiyo? may horta catosh, adigaba waad og tahay adduunweynaha ayaa lockdown lagu sameeyey. magaalooyin waaweyn iyo ganacsiyo waaweyn oo adduunka ayaa lockdown lagu sameeyey. Nairobi metropolitan ayaa laga bixin. markay isqabsadaan ganacsiga iyo in la badbaadiyo ummadda, muhiimadda waxaa la saaray in la badbaadiyo ummadda. nafta waa in la badbaadiyo. marka dowlad kasta, ama dowladda Kenya ahaato ama dowladda Maraykanka ahaato, horta awalan maxaa mas-uuliyad u saaran dowlad kasta dastuurka laga fiiriso waxaa weeye badbaadi nafta, kabacdi aad badbaadina hantida iyo xoolaha ay bulshada leedahay. waana 14 beri 7 beri kabacdina dibaa loo fiirin. waxaa la fiirinayaa siduu numberka oo COVID-19 positiveka siduu ahaanayo. marka sidii maalinta hore iyadoo dadka lagala tashanin xaafadda islii bandowga loogu soo riday, maanta dowladda dib ayay isku noqotay iyadoo la tashanayso ganacsatada iyo mas-uuliyiinta. tilaabo ayaa maanta la qaaday.